qodobadan caawa idin hayo waxa kamida Iiraan iyo Israa'iil oo halaag iyo hoog u ka dhex taagan yahay caasimadda Tel Aviv qayb dhan ayaa burburay oo diga iyo dambas noqday waxa la raadinayaa raq iyo ruux inay jiraan dadka burburka ay Iiraan geysatay ku hoos jira Donald Trump afka ayuu furtay nabad ayuu raadinayaa dunidu afka ayay haysaa waxa ka dhex socda Iiraan iyo Israa'iil caawa waxa la filayaa mashaqo kale inay Iiraan ka dhigto magaalooyinka Israa'iil gaar ahaan Tel Aviv iyo Haifa gogashii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud maanta way baaqatay birita ayaa la filayaa miisaankii ugu cuslaa ee dhinaca mucaaradku way diidan yihiin madaxweynaha 11 bilood ayaa muddaxileedkiisa ka dhiman marka maanta la eego ciidanka Puntland waxay qabsadeen deegaan muhiim ah ceelbiyood ayaa kamid ah dhulka lagala wareegay Daacish oo iyagana jaan iyo cirib meelay dhigeen war aan laga haynin siciidani mar kale ayuu weerar afka ku qaaday dawladda dhexe ee federaalka suugaanteennii caawana waxaad ku daawan doontaan Israa'iil iyo waxa abwaanada Soomaalida ay ka yiraahdeen qudus waxa toraan uga hadlay oo kor u tanaagooday tarfuuf gaal xun wado waa midaan tima ka goynayno waxba uma tawalayo allan taabiciisahay adeega Wire Nations waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga Yurub ama Canada aad ehelkaaga Afrika ku sugan si toos ah lacag ugu diri karto qiimo ku qanciya iyo degdeg siimo kala soo deg hadda Play Store ama App Store Wire Nations adeeg loo bogay lana mahadiyay aan ku bilaabay Israa'iil iyo Iiraan mid kamida mashaqooyinkii dagaal ee dunidan casriga ugu waaweyn ayaa ka dhex socda waa la isduqeynayaa waxba la isuma reebanin maanta ayaa ugu dambeysay oo Iiraan ayaa weerar xilligiisii aan loogu talagelin lagana filaynin ku qaaday magaalada Tel Aviv xalay ayaa sidoo kale weerar ba'an oo burbur geystay Tel Aviv oo ka dhacay sidoo kale magaalada Haifa ayaa burbur weyn uu soo gaaray duqeyntii ugu dambeysay ee galabta casirnimadii ka dhacday Tel Aviv Iiraan waxay ku beegsatay guri qoyska Netanyahu ay degan yihiin iyo xarunta laga dhaliyo korontada Israa'iil ma aysan filaynin xajmigan iyo awoodda Iiraan ay isticmaalayso burburkii xalay Tel Aviv ka dhacay waxa la raadinayaa dad raq iyo ruux ilaa hadda inay nool yihiin aan war laga haynin aad bay u yaaban tahay Israa'iil waxayna caawa filanaysaa hoog kale inuu dhaco Iiraan waxba ma reebanayso maantana way sii digto waxay tiri